إن حسن runtii kulankii guddiga joogtada ee aqalka sare u yeeshay koodii bisha waxaan go'aansanay arrimo jiro oo aad u soo taagnaa labadii sane ee u dambeysay in aan dood dheer ka gelina oo doodii ugu dambeysay ay ahayd in 31 bishan la keeno golaha aqalka sare ee miisaaniyadda qaranka laakiin waxa caddaatay in guddoonka golaha shacabka uu go'aansaday in arrintaasi loo soo gudbin waxaa jirta in sanadkii hore dhammaantiisa arrintaas aad dood looga galay oo la yiraahday waqtigii ayaa dhammaaday madaxweynuhu uu ballan qaaday in sanadka dambe la horkeenayo aqalka sarena uu fasaxay in la ansixiyo miisaaniyadda inay socoto sanadkaana ilaa saacad ayuu u fadhiyo golaha aqalka sare uu sugaya in miisaaniyadda la horkeeno mar walba dhahayo waa la keenayaa lama keenin marka sidaas daraaddeed waxa aan go'aansanay in guddiga joogtada uu ka fariistay uuna soo jeediyey arrimahan iyo arrimo fara badan oo jira oo sababay in ay wada shaqaynta labada gole ay noqoto mid yacni sidii la raba aan ahayn arrintan xisaab xirka si gaarka uga hadasheen marka laga soo tago waxaa tiri arrimo kale ayaa jira arrimaha kale maxay yihiin waxaa ka mid ah in maadaama golaha aqalka sare uu yahay matalaha maamul goboleedyada in xataa baarlamaanada dowlad goboleedyada oo ay tahay in golaha aqalka sare ay wada shaqayntoodu dhinacaasi ka timaadan ay runtii iyadana ay gacan dhaafeen waxaa jira in habka dastuurka uu ogol yahay in maaragtay labada aqal kii la doono uu ka bilaabo karo hindise sharciyeed ay maaragtay runtii ay arrintaas culays ay ka keeneen waxyaabahaas oo dhan marka la isku daro waxa ay ka mid tahay iyo wada shaqayn in ay si fiican aysan uga soo jawaabin waxyaabahaasi oo dhan senator maxamed sharciyan markii la fiiriyo arrinta xisaab xirka oo kale oo aad soo qaaday muxuu yahay doorka aad ku leedihiin waxaa og tahay in qodobka 8 faqradiisa koobaad b ee dastuurka federaalka si cad uu qeexayo in miisaaniyadda qaranka ay tahay hindise sharciyeed waa hindise sharciyeedka kaliya ay xukuumadda uu siinayo dastuurka inay iyada soo samayso kabacdina maaragtay laga ansixiyo golayaasha madaxweynuhuna uu saxiixo mar haddii uu sharci yahayna oo madaxweynuhu saxiixayana waa in uu labada gole soo maraa taas ayay tahay anaga qodobka aan ku taagannahay ana aaminsannahay runtii in ay baalmareen dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waxa metela aqalka sare miisaaniyadda haba yaraatee waxaa ku jira wax loogu talagalay dowlad goboleedyada sidaas daraaddeed aqalka xaq uu leeyahay isagoo matalaya dowlad goboleedyada eedan inuu sidaasina ula socdo waxaa tiri golahan aqalka sare waxa uu matalayaa dowlad goboleedyada waxaa jiray loolan u dhexeeyey dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada soo uma eka markii dagaalkii dhanka ahaa inaad baarlamaanka keenaysaan kan wuu ka gedisan yahay waxa aan isku haysana waa arrimo farsamo waa aragti aan u aragno golaha shacabku in maaragtay si ka gedisan oo u arka in hoodii qayb laga qaatay waddanka waddan federaal ah waddan kasta oo federaal ah waxa uu leeyahay laba aqal